Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Videogan waxaan kugu tusi doonaa inaad ku xiratid WhatsApp-kaaga fingerprint ama finger lock. Taas beddelkeedu waa password inaad ku xiratid oo finger ah ama suulkaaga WhatsApp-kaaga anagoon isticmaaleynin wax application ah aan kala soo degin Play Store-ka. Haddaba WhatsApp-kaaga soo fur, kadibna saddexda dhibcood ee geeskaas ku yaalla calaamadda searching-ka agteeda ku dhufo. Kadib waxaa kuu soo bixi doona settings ku sii dhufo. Kadibna waxaad ku sii dhufataa accounts. Kadibna waxaad ku sii dhufataa meesha ay ku qoran tahay privacy. Halkaas aan hayo privacy-gaas ku dhufo. Kadibna markaad privacy ku dhufatid waxyaalahan ayuu kuu soo saari doonaa. Anaga waxyaalahan uma socono, kaliya waxaan raadinaynaa fingerprint lock ama finger lock meesha ay ku qoran. Waa helnay wataas fingerprint-ga disable bay naga tahay, enable baan ka dhigaynaa. Fingerprint-gaaga protect saar. Kadibna suulkaaga ama fartaada saar saa ugu daabac. Haddaba markaad fartaada ama suulkaaga saartid oo ku daabacdid wuxuu kuu soo saari doonaa automatic lock waxa la yiraahdo. Automatic lock wuxuu kaa saacidayaa xidhmashada WhatsApp-kaaga. Waxaad rabtaa WhatsApp-kaaga in si dhaqso leh uu xidhmo, mise waxaad rabtaa 1 daqiiqo inuu ku xidhmo, mise waxaad rabtaa 30 daqiiqo. Marka qof walba choice-kiisa isaa yaqaan. Haddaad rabtaa 1 daqiiqo ka dhigo, haddaad rabtaa 30 daqiiqo kadib ka dhigo, adigaa yaqaan. Marka aniga waxaan doonanayaa meesha ugu fiican waa inuu si dhaqso leh isku xidho. Taas ayaan u deysanayaa, isku xidh si dhaqso leh ayaan dhahayaa. Okay, WhatsApp-kayga haddaan ka baxo ku soo noqdo mar kale wakaas. Suulka ama fartaada ayaa saaraysaa, labadaas mid ka mid ah unbuu ku furmayaa. Wakaas.